marka laga hadlayo dunida aaladaha laptobyadu waa kuwa aan ugu adeegsiga badannahay marka laga soo tago taleefanada maadaama laptobyadu yihiin computer aan u qaadan karno meel kasta qiimo ahaan waa qaali waana muhiim in aan garanno sida loo ilaashado qodobada soo socdana waxay ka qayb qaadan doonaan in jiritaanka laptopkaagu dheeraado haddii aad raacdo ilbiriqsiyo kadib ayaan ku soo gaarsiin doonaa si aad u ilaashato laptopkaaga isku day inaad raacdo qodobadan soo socda kow ka ilaali boorka iyo wasaqda runtii boorku waa cadawga koowaad ee qalabyada korontada ku shaqeeya isku day in sanadkiiba 2 ama 3 jeer aad nadiifiso qaybaha gudaha ee laptopkaaga 2 ha u dhaweyn cunno ama cabitaan midna ogow hal dhibic oo biyaha oo u gudba gudaha laptopkaaga ayaa dhib kuu soo jiidi kara 3 ha dul saarin joodari barkin ama maryo kaleba marka uu daaran yahay laptobyadu si fudud ay u kululaan karaan waa in aadan marna ka xirin halka uu ka hawa qaato haddii aadan uga maarminna iibso oo saar cooler pad ama saar meel siman oo nadiifa 4 ha ka qaban qaybta sare ee shaashadda marka aad qaadayso qaybta hoose mar walba ka qabo sidaana ku qaad haddii uusan laabnayn 5 ha dhigin meel kulul hana u bandhigin ilayska cadceedda xilliyada ay kulushahay 6 ku qaado boorso ku jaango'an oo ka celin kara jugta shilalka 7 isku day inaadan jaajarayn ilaa uu ka dhammaado dabka ku jira si aysan shixnado koronto ugu raagin marka aad jaajaraysana ha ku sii hayn jaajarka haddii baterigu gaaro 100%. 8 u nadiifi keyboardka iyo shaashadda si fiican iskana ilaali in aad maro ku nadiifiso keyboardkaaga waayo waxa uu qabsan karayaa batanada keyboardka lana bixi karayaa markaasna 9 iska hubi in aadan wax ku ilaawin keyboardka iyo shaashadda dhexdooda marka aad xirayso 10 iska ilaali inaad dul saarto laptopkaaga waxyaabo culus 11 ka fogee meelaha ay yaalaan qalabyada culus ee dhalin kara awoodo birlab sida sameecadaha waaweyn tviyada frijeerada iyo qalabyada waaweyn ee la midka ahba 12 ka bixi cd ama dvd marka aadan adeegsanayn 13 ka saar laptopkaaga barnaamij kasta aadan adeegsanayn una baahi qabin adeegsigiisa 14 ha saarin meel uu halis ugu geli karo soo dhicis si wanaagsanna meel u dhig ugu dambeynna qodobka aysan marna ahayn in aan ku seejiyo samayso meel kale oo aad xogtaada ku kaydsato oon ahayn gudaha laptopkaaga oo waxaan ula jeedaa samayso backup si aadan u waayin xogtaada maadaama ay muhiim kuu tahay ha ilaawin in ugu yaraan toddobaadkiiba mar ama 2 xogtaada cusub aad ku kaydiso kaydkaaga labaad hana ka daalin waxaan filayaa in 15kan qodob ay ka caawimi doonaan dhowrista laptopkaaga iyo xogtaadaba fadlan haddii aad hayso qodob aan ka tagay nawla wada qaybta hoose ee faallada hana ilaawin in muuqaalkan aad la wadaagto asxaabtaada mid ama labana ugu yarad qaybta hoose ee faallada oo aad la jeceshahay in ay laptopkooda ilaashadaan haddii aadan ka mid ahayna waxaan kugu casuumayaa ku soo biirista im252 facebooka iyo youtube-kaba si aad uga bogato muuqaalo noocaan oo kale waxaa noo balana muuqaalka xiga xanaanee laptopkaaga